kumanaan kamid ah dagaalyahanada jabhadda mucaaradka ku ah dawladda Suuriya ayaa la wareegay inta badan magaalada Xalab iyagoo fadhiima ka samaystay meel ay kamid yihiin saldhigyada waaweyn iyo garoonka diyaaradaha sida ay sheegeen kormeerayaasha manajiri wax iska caabinay baa la yidhi ay kala kulmeen ciidamada dawladda Bashar al-Assad ee Suuriya oo Xalab maamulaya tan iyo sanadkii 2016 markaas ay dib uga wareegeen kooxda Daesh. Kormeerayaasha koorka kala socda colaadda iyo xaaladda xuquuqul insaanka ee Suuriya ayaa sheegay in maleeshiyada kooxda hay'atu tahriir sham ay hadda gacanta ku hayaan garoonka Xalab taas oo ka dhigan inay gacanta ku dhigeen garoonkii ugu horeeyay oo caalami ah tan iyo markii ay si lama filaana dib ugu soo rogaal celiyeen wadanka Suuriya. Militariga Suuriya ayaa sabtidii sheegay in tobanaan kamid ah ciidamadooda lagu dilay dagaal ay la galeen kooxda mayalka adag ee hay'atu tahriir sham kuwaas oo la wareegay magaalada weyn ee Xalab. Wasaaradda difaaca Ruushkuna waxa ay sheegtay in ciidanka cirka Ruushka uu duqeymo cirka ku garaacay bartilmaameedyo ay ku sugnaayeen mucaaradka Suuriya si ay u taageeraan baa la yidhi ciidamada dawladda. Kooxda hay'atu tahriir sham oo hore loo oran jiray jabhatu nusra ayay dawladaha Mareykanka, Ruushka, Turkiga iyo dawlado kale u aqoonsan yihiin koox argagixiso. Hadda wax ay maleeshiyaadku u jihaysteen gobolka deriska leh Xalab ee Hama halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada dawladda Suuriya. Dagaalkan ayaa ku soo beegmay maalin kadib markay Israa'iil iyo Xisbullah gaadheen heshiis xabad joojina xilli uu wali sii socdo dagaalka Gaza waxaana uu xaabada ku sii shidaya colaad 14 bilood oo la soo dhaafay ka horeysay mantiqada bariga dhexe.